أنا يقول ما كان وعن شيء ليش ما كان تجي أهو على يدري أو شو يسوون معتي وما هو سيجا وناس وايد شركة دور بالمقابل أحنا أنت يا تعرفين حاجة تنسوا هذا وأنا سمعوا ليش ده بقولوا كأفكار أيام ماشي سكوتي ده بقولوا كأفكار أيام ماشي سكوتي الدور لما كأودنا هي مشكلة الزوج اللي لما كي هني كتير بيهاي فكرتنا دجال كالوسط هذا الأسرانو ودبعت اللي هو اللي هالشيء شركي مركي أي قاضي كونفرنس ماشي كشري زي إن دعاية يدجال كيدولمات لقى الجوتستو taasna waxay ka dhigeen Soomaali oo dhan arintan markay dhacday ayaa la yiri bayaan laga soo saaro oo ha carbaareeyo shirku Soomaaliland baa ku soo gabdarootay ku soo xadgudubtay Puntland xuduudkeedii iyo dadkeedii dabadna waa uu kala baxay dadkii koonfur nafteedii qaar ka mid ah ayaa fikradii gidaarka ku gubtay yiri mu'amaradan ووضع عبد الله يوسف يكون هكذا كتير وغويدي وأريد يوجدان ذاتك تاريخ ذا إسرائيل يو وناك ينظامك إلا قبل فيها الدنيا ورتبيت القصيد وهي مؤامرات دني لوبا يكون هاي من مقدشو إلى الدولة إلى بوساسو هم الذين أريد كتموا الأسعانون كما يمان الأسعانون كالجيل أنتني ده كلام أسعارنا بريء كيهم مؤامرات وحويان بريجة أو خبرية أو سحر وين كأول والسجل أنتي ركبنا وكم بدا ورودنا كون النانا قبليات الدجال سبورت ونكتب بين مسيان أنتي جدول كيوان لقى ساري وحنا مسؤولين لساري عبد الله يوسف أيام ساري أنتي ما جاء الطبوع يروح وياتان أرنت هنا هنا هبالي بديت كذا لطي أخيرا هاي سومالي اللي لوسر ودي ماشى أي وشدد وحي دبنا لو كلهم كريو دبنا عالم كا لو خسروا الله يراهم يلا جلسة قطب في نبتقليا إلى الدولة هي سوماليا جودهان سيقول لي هو أرنت لو كانوا كعندنا فرجع وقت حديث مركو قالوا حقهم لي يعني ما وينو إنه حالة طوارئ إعلانه دبنا لصور حلوه لما نقول حالة دقيقة معناه حالة طوارئ الدقيقة وبتبادل الوجود بتبادل أي قرنة أي تاريخ ده يوم مكسب كان أمته هالشيء ويان يا الله قاعدين نعلو شيء يا الله قاعدين نعلو أو يا الله قاعدين نعلو شيء وايو كاو جدد وحويان وتحارض الطوارئ الدقدقي أشهر كيدو وانا بربادو تاريخيا وأمضى إيا قرنكا لنبت قلنايو تارت الأوليك كلمة ما هاي تصرف كيدو مكا لي قاتل الجمهوريو وحويا أمضى المسيلة إذا أمضى تلك المسيلة هي إلا صالح بيقو وقرار سليم من اللي قادو وأي نغطو مسؤولية مشتركة وعلو لما أي كتايب بشهدو مسؤولية كتمادا أمني ووضنك هي مسؤولية ووضنك وقرارك إنه قادنو هون كي يعمسوا الله وحوية وجدد أي نكلا نهاي وحوية إلا نمد ليو والله صلو مسؤولية إلا جسارا إلى إنه إلى مدة سيدي ماجورتي اللي تذكرها على إيرا إيه المقارنة حالة الدقدقة قبل كلاس عانود مركز لقرنا يبو دقمة عينو وعرفتي دي شيء يمضنا يا سوماليلاند مقع سوماليلاند لا يضا waxaynu ku qaadanay horta waa maapkan sidan u qarqoorane samaysan ayaynu horta Soomaaliland ku nahay dadka reer Soomaaliland way degan yihiin Ethiopia sheegan mayno Puntlandna way degan yihiin oo sheegan mayno maapkaas aynu ilaashanayna waxa maanta loo yimi in maapkii la xaluufo oo la jaro oo qayb la jaro oo la yiraahdo doorasho ka dhici mayso
oo la yiraahdo maamulka dhismi maayo taamiyayna aqbali karnaa waxaan idin leeyahay wax kala maaha arrinku waa aan suganna xuduudaheennii un weeyo taariikh xuduudahaasaynu sugannaa ayuu magaca Somaliland ku sii jiraya laakiin haddii xuduudaha la sugi waayo oo uu xaluufmo magac kale ayaynu la bixinaa Somaliland noqon mayno waxaan aad u taageersanahay aragtida uu soo jeediyey madaxweynuhu ee uu xaaladda dawaariga ah ku geliyey laascaano marka laga reebo degmada Caynabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh diroonayna waafaji cadifadana aynu iska ilaalino markaan eego laascaano harti ayaa la baxay Puntland horta runta aynu ku hadalnay eega isagaa la baxay Puntland waxaan leeyahay wuxuu yidhi gudiya inaad goysayna barhkay baa kugu jira nin wasiire baa ina weeraray ninkaasi Puntland buu wasiiru yihi anigu Puntland odhan maayo majeerteen inuu wasiiru yihi ninkaa majeerteen iyo wasiirkaa anigu waxaan qabaa rayigay ilaa aynu helno hartiga Somaliland inay ku gudban yihiin iyagu majeerteen runtana aynaan ka fogaan hadda ragga aynu helno ninka wasiirka ah ee halkeena ka wasiirka ah ee madaxweynihiisii la joogay ee 15 cisho ka sii horreeyay ee goor la weerarayo iyo goor lala dagaalamay aan ogeyn anigu waxaan leeyahay wasiir Soomaaliland u adeegaya maaha kalamaad fariisto rayigayga diibanaya markaynu ka helno dhulbahantay iyo warsangali cid ayaynu xadkeena gaari oynu majeerteen iyo gaari yaynaan oynu iska celin karnaa laakiin intay nagu gudban yihiin labadaas inala qaatay Somaliland inala qaatay intay nagu gudban yihiin haddaynaan cid ka samaysan sidaynu u gaadhnaa way adkaanaysaa dagaal daba dheeraadaan u noqonaya saasaan kaga baxay rayigaygana waxaan ku dhiibanaya anigu rayigayga waan ku dhiibanaya warqaddaa madaxweynuhu inoo soo furay ee xadkeennii aan gaadhnaa ha la raaco dadka la kaxaynaya xadka gaadhayaana hartiha waxa weeye deer kuma gudbana isma keen gudbin wax dheer la yiraahdo ee waxay dhibaatada jirta halkay ka soo jeedo waa Soomaaliya meel ka baxsan ee yan hoos soo noqon qarankeena ku soo noqon waxaan ku celinayaa dhibaatada yan deer iyo kuma gudbana hadii la yiraahdo hataa inuu gudban jamacad kula hadla laga sheegay hadii lagu gudbana ee dawlad kale oo roodiga doorashada la aqoon ku soo tuushay oo meesha timid shacbigu hadaan lahayn ciidan qaran iyo booliis hadaan lahayn dadin ma celiyo nin isagoo qoristan ciidan si tabac celi karo marka wuxuu shacbi xilma saaray wuxuu saaray wixii ka mas'uuliyad qaran ee meel ka soo jeeda ayuu ma ka tagay marka waxaan warbaashi yaa la reeray oo si qaran iyo si dadnimo deernimada si qaran waxa loo gaasay reer loo keli waa qodobka labaad waxaynu maanta inta wadda intay ka Soomaaliyeed ku dhaana waxa sharciyada la yiraahdo way u ilaalinayaan sharciga hal la ilaaliyo waxa sharciyada la yiraahdo waa inta inta ka dhaana kala damaynta iyo ismaqalka iyo wada tashiga waxa umada kala ku dhaana yana hal la ilaaliyo baashi la ilaga reeray meesha ma taalo Somaliland iyo taarti ma taalo waxay hada Somaliland sidee ay roostu gaweyn sidee cid ugu duulaan maaha hebel waxa qabtana ma marka hore sharciyadu halkee marlabaadka saddex wafdi baa tagay saddex wafdi mid Sheekh Muuse Dowladda ka bidoomiya midna wasiiruha madaxweynuhuna talada labadaas ku tagay saddexda wafdi tagay ee odayaasha
iyo wasiirada iyo madaxweynaha ee laascaanoo tegey wuxuu ka tegay talada madaxweynuhu wuxuu ku tegay talada labadaa guddood ka horreeyey marka arrintu waa laba mid weeye madaxweynuhu xeerka uu soo codsaday ee sharcigaa sidiisaa loo qaato ta labaad waxa weeye baadhis labadaa guddi hawshay u tageen iyadoo calanka guumaysu suraya somalilan ee madaxweynaha la geliyey oo isbeesiga dhexdiisa u surayay oo madaxweynaha la geliyey ha la baaro arrintuna ha noqoto somalilan iyo puntland ha noqoto waxaan leeyahay madaxweynuhu wuu ku mahadsanyey markuu ka soo baxay maatada iyo guryaha iyo naagaha lagu dhex dagaalamo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu